ma waxay kaa xasidayaan oo aanay ku ogolayn wixii dheeraad ama wanaagi ah ee uu ilaahay kugu deeqay am yaxsuduuna annaas calaa maa aataahum allahu min fadlih arrin yar maaha wax xanuun aada u culus waa arrinka gaadhsiiyey nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaaladii markay aabahood eedeynayeen inuu miisaankuba ka lumo oo ay kala garanba waayeen cadaaladii iyo jacaylkii id qaaluu liyuusufa wa akhuuhu axabu ilaa abiina mina wanaxnu cusba eeg hadda haddii cadaalad la-aan aabahood ay ka arkeen inay ku eedayaan bay ahayd samay ahayn axabu ilaa abiina mina wanaxnu cusba inay qalad ka dhigaan ay ku eedayaan oo ay ku xukmaan weliba ina abaana la fi dalaalin mubiin sababa dhacdayba cidda ay xukumayaan iyo cidda ay ciqaabayaan inay isku mid noqoto bay ahayd si cidda ay eedeynayeen cidday ku ciqaabeen way kala duwanaatay waxay ciqaabeen ilmo yar oon adduunya xaalkii wax badan ka ogeyn oo jecelba ayay ka doodayeen si loo dili lahaa loo mustaafuri lahaa ceelka loogu ridi lahaa sababtuna ay tahay in uu aabihii jeclaaday ay u deeqi waayeen oo ay qalad u arkeen haadaa rabbi kutubkan sheekha qoray ayaa wuxuu tilmaamayaa hadal uu nuxurkiisu yahay cidi cid ma xaasideen si haddii xaaside ayuu leeyahay oo ay dhacdo ilaahay si fiican uma taqaan